السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سولو هذا الصاحب بيال وصاحبكي فؤاد قولي سومالي سوبر سبورت يعني قد داونيسان عاو حدنا عيقة فردية صاحبكي قيسكا oo aan maaragtay muddo hawada iska naqaanay oo maaragtay oo ku faraxsanayn aan markii ugu horeysay saaragno waliba maaragtay aan muuqaal ka soo wada maaragtay ka soo wada muuqano waxaan ka hadlaynaa suuqiya furan ee qaysow waliba maaragtay kooxuhu waxay bilaabeen dukaamaysigoodii Manchester United waa kooxda ugu badan ee marka la fiiriyo qodobada aan fiiri doonaa insha Allah ilaa intaan ognahay horta qodobada ugu muhiimsan Manchester United aan ku horeyn doonaa United waa kooxda ugu badan ee hadda maaragtay suuqa aad u haysata marka loo fiiriyo ciyaaryahanada ay dirtay iyo kuwa ay rabto Pogba waa baxay ilaa 5 ciyaaryahan baxday inta la xaqiijiyo kuwa kalena waa ku soo socdaan De Jong ay maaragtay nafta dul dhigaysaa De Jong xaaladda Manchester United aday aragtidaada maxay isleedahay uu ka bedeli karaa markaad fiiriso xidigiga qaabka uu ciyaaro falsafada macalinkan cusub uu rabo inuu maaragtay dabaqo iyo guud ahaan sida ay maaragtay Manchester United u ciyaarto أدو ما سنتهاي صاحب فؤاد أديجي عثمان حسن علي فانتاستيك لو صاحب وادو قيمة بدل ومدو عن كل من لكن نشرف بقاربي تهينا ماضي استوديو سومالي سوبر سبور ولي حتى حاول كان أنا كودا مركع عوين إنه وقت كودا قادن إنه إن قبل ما سنتين مدلوات فرقين تهدانو كودا قالوا رنتي نادي كودا عيت مانشستر يونايتد شقة أدق بقبان إنسان مركع لقوا مشروع عصوب إريك تنهاج معلن كم حبلا قاضي إن إزبدل لقوا صمانة معمول كوحي شيئا معلن تي رئيس لو كل من إن أوكيا من فكرة ذا نكن وكفكر يعدي إنه قلنا هاين حديقها بحية قوة مركا ودونيو حلقة يباتوي كيستوى هذا نوصل نقولنا موضوع ديون ناديك بدأ عكت يونايتد ما دونيو صوبته دونينا لبا أرين بيسوق جرتها ناديك بدأ عكت برشلونة ناديك الرياضيسا إيو لاعب كان عمر كاسر ربع يسوي كان يسيجو والنادي جنبينو سيجا كعيار السنة ويسووا عياره طبعا برشلونة مركزية وهي عيار جنبينو سيجا ما يونايتد مع عيار دونتو وعقبت مركز علارات كدم وعامين دونتو لكن وحاصل مر والله هدات في ريسد هذا الكخوان لابورتي هذا الكمركز نيكي شافي لابد هو عيت الماميان حالة ديون إنه مهم وياي لكن حالة الدقالة يضروف تكوع كل جرت إنه ريحس إنه مركز وقعن قصة لقاضي كريم معنا وحيتاي نادي وسي صحيح وهشو إن اللي يبين دونه ما يونايتد لاعب كان دور وين أيوكا قادن دونا هرمارين تدا جارهان يونايتد سندي وقدم بي ما هيسن حدك قدها مجرين أفكار مجرين نظام قرى أو كهذا مركزي لو قرت يهوية ما قرش كهذا كبد عيت يونايتد مركا لاعب كان مدكود وحكين دونا إن ده يكسر جستا سمر كان حديقة بدن يكون ديردان هل كان لقى بقية ما أنت مركا لنا إنجليز كليفربول ما يمان سيتي ولا إيه يجلس يصير هذا لكن وحنا قلنا أنا وضع مركا حديقة كانوا سو جيدا مدة لبعض معلن كم ويسقوا عاون دونا فلسفة دي سدك دقيقة يكون دبقان صوت اللاعب أود ولا بيلي أب كمان كبد سيدين وسمايو marka wahagaag marka waxa leedahay wax badan oo maaragtay qorshahan macalinkan uu ka qaban karaa isla markaana ku soo kordhin karaa waxaan aadaynaa Manchester intaan ka soconno ciyaaryahanada badan ay rabtaa marka bal koox walba xidiga ugu muhiimsan ay rabto iyo xaalka ugu dambeeysan aad Chelsea aan fiirin doonaa Chelsea عثمان maaragtay عثمان inta badan garabkiisa fadhi jiray qayso Cabdulqaadir Chelsea afar ciyaaryahan oo daafaca oo muhiim ah mid walba mid kale uu ka daran yahay ayaa maaragtay qaarna baxeen qaarna banaynayaan iyada bedelkeedu waxay raadinaysaa kaliya dest maxay ku arkeen طبعا جلسي اسبوعي وقدم بي حديقه بدن بال حريريي دستي wuxuu kamid ah xidigaha markaasi suuqa yaala qiimo jaban laga yaabo inuu horumar ku sameeyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea sababtoo ah Ajax xidigi uu ciyaarayay destigii Ajax waxaan u aragay dest cajiib ah laakiin Barcelona la kuman wala xitaa Xavi uu wax badan lama sameeyo desti waa laacib macquul oo mustawa wanaagsan soo bandhigi karaya isla markaana aad arki jirtay waagii uu joogay marka laago Ajax laakiin sidoo kale nadiigu badda cagta Chelsea waxay raadinaysaa Conte oo iyadoo ay doonayso laacibkan inay qaadato waliba xitaa laacibka uu isagu doonay Spain inuu joogo oo Barcelona nadiig kale u matalo laakiin Sevilla aad ugu dhagan tahay nadiigu badda cagta waa Sevilla Diego Carlos oo iibisay marka waxay ku qasbantahay inay siisato hadii sabab marka ku qasbaysana ma jirto inay iibiyaan maadaama xogaa dhaqaale ay iyagu helaan ay doonayeen marka نادي كبد عكتي جلسي دستوي رادينيسا وانا لاعب مركزي دمبيت كمدي بدل انه قن كريا ريس جيمس ان سيدو كله هدي اي شان فايده بكين هدي مايو حبيحي دونا نيكي اسارس بلا كويتا وسببت ugu weyn bedelka xidiga lagu magacaabo
wiilka Dusty Azpilicueta in lagu bedelo ayaa sababta ugu weynaa difaaca haddii la yidhahdo waxay raadinayaan laacib qad markaasi difaaca dhexe ah Conde sidoo kale waxaa jira laacib Leipzig ka tirsan isla markaana difaaca dhexe center back ka ciyaara oo iyaduna ay doonayaan isla markaana Gondor magaciisa laga yaabo inuu isagu khariiqa qaldan yahay laakiin Leipzig isagu jooga safkada inuu imaan marka xidiga badan oo difaaciya baa la xiriirinaya maamulka cusubna waxay ballan qaadeen 1 bilyan in la qarash gareyn doono mustaqbalka dhow si kooxda marka mashruuceeda loo adkeeyo isla markaana halkii ay sii wada waliba xitaa su'aalo badan baa dul yaala yaa bixi doona Ziyech Lukaku xitaa Mount oo United iyadoo ay doonayso dabcan ninkii ahaa N'Golo Kante iyo waliba Jorginho oo iyagu sanad kaliya heshiiskooda ay ka hadleen marka calaam su'aal badan baa saaran Chelsea mashruuceedu Pulisic oo aysan isku faraxsanayn oo Liverpool ay doonayso waa laga yaabaa 7 xidig ilaa 8 xidig inay baxaan waa si lamid ah maaragtay waa si isku scenario ay u egtahay inay yihiin ayaga Manchester United marka loo fiiriyo aad iyo marka suuqa loo fiiriyo Premier League Tottenham dib soo dhisay maaragtay iyadoo lafteed isku wada Perisic ay yimid ilaa iminka waan ogeyn tani Antonio Conte xilligu yimid iyadana maaragtay inay soo noqonayso ma moodaa maaragtay qaysow adiga aragtidaada iyo maaragtay sida markaad fiiriso iyo qaabka suuqa ugu jirto iyo waliba xidigaha meelaha ay rabto hadii iska xoojiso iyo hadalhaynta taagan in xil ciyaareedka dambe Tottenham aan la dheereysan karin Tottenham xilliyeedka dambe kasoo macallin Conte waxaan ku aragnaa anagu sanad walba oo meel tago in uu yahay macallin taabashadiisu ay muuqato waxa laga yaabaa 6 bil isagu inuu joogo kooxdana uu kala kicinayo fiiri waxyaaba cajiibka Tottenham ilaa waxa kamid ah koox min markaasi Nuno Santo Espirito xilliyeedka aad ogeedeen Mourinho si ahayd koox aan kubadda haysan karin ilaa iyo aakhirka xilliyeedka Liverpool oo ah ama kamida kooxaha ugu badan cadaadiska sameynaya kubadda laga xarimayo kubadda la qabsanayo tadriijiyan heerbeer kubadda loo soo dhisayo ilaa iyo weer loo gaarsiinayo iskama iman habeen iyo maalin waxay ku timid shaqo waxay ku timid in xidigaha markaasi la baray qaabkay kubadda u haysan kariyaan Conte kubadda ma haysan jirin xidigahana ma haysan jirin laakiin afkaarta maadaama xidigahan ay munaasib ku yihiin waa lagu dabaqay waana la baray sida darada ku tusinaysa marka Conte shaqo qurux badan isagu inuu ka qabanayo sidoo kale Perisic waa laacib nocma awood dheeraad leh ka waran laacib qadka dhexe markuu kaaga soo kacayo la yiraahdo waa nocma sifaadka Dembele iyo markaasi Mbappe dabcan ka tay ahaan kama hadlayno laakiin markaad aragtid lugta midigta uu soo ku ciyaarayo laacibkaasi Perisic iyo bidixda labadiisa lug kalama taqaanid tay awood badan tay macnaha labaduba si isku mid ah u shoodaya ugu gambinaya wayna yarihiin laacibiinta sida sifaadkaasi sidoo kale laacib taktikiyan dabaqi karaya macalinka afkaartiisa waxaan ku aragnay Bavaria waxaan ku aragnay markaas Inter Milan waqtigii ugu dambeeyay runtii laacib awood leh iyo noqon doona bilaash waa lagu keenay laakiin waxay doonaysaa laacibkii Saint Maximum ee kooxda kubadda cagta Newcastle oo lacag konton milyan laga yaabo ilaa iyo lacag ka yar iyagu inay ku doontaan ku keenaan runtii shaqo qurux badan buu Conte qabanaya Conte aniga sanadka dambe booskiisa saddexaad ama labaad shaki ma gelin karayo aad iyo Liverpool maane waa socdaa maane iyo Salah inay kala doortaan maaragtay ku qasbanaadeen carcar badan Fabio Carvalho marka laga tagana waxaan moodaa maaragtay in waa rabnaa in hadalkooda uu ku soo Lewandowski rabnaa nin walba la sheego Liverpool waa ku jirta xitaa Mbappe oo tuu sheegay maaragtay uu yiri waa ila soo xiriireen Liverpool iyada maxaa u qorshaa horta nadiga kubadda cagta Liverpool marka la eego ma Salah heshiiskiisa mise Mane Salah hadan iyo Mane hadan laba u kala qaadno arrinta ku saabsan Saletor waxa soo baxday oo kale in naadi cagsigeeda ama City ama naadiga Premier League uu sii joogi doono oo ku ciyaari doono naadi kale طبعا kaliya ani waxaan u arkaa arrin maamulka cadaadis loogu saarayo oo laacibkan wakiiladiisa ay ka shaqeynayaan in ay warbaahinta siiyaan xoga oo in ay ku cadaadiyaan isla markaan lacag ay ka qaadaan sida wayo معقول maaha irtiga iyo taariikhda iyo waxa uu kasbaday iyo cushaaqda Liverpool markaad garoonka soo gashay sida marka ugu heesayeen Mo Salah yani heesta labaad ee ugu caansan you will never walk alone kadib macnaha laacib loo qaaday koox waa laga yaabaa loo qaado laacib laakiin heestiisa heerkaas gaaraysa waxay ku tunaysaa shaqada uu qabtay iyo sida uu kasbaday macnaha qiyaas marka heer qulubta inta la jacaylka u haya markaasi uu ugu biiro Man City ama United hubaal wuxuu noqon doonaa Vigo wixii ka qabsaday Barcelona markaasi madaxa doofaarka lagu turi jiray macnaha wax kale loo raadin doonaa marka malaha madaxdadeed baa loo soo goyn doonaa marka nadiga kubadda cagta Liverpool hadan ka hadalno sheekada Mane oo kale Mane ixtiraamkii uu isagu mudnaa ma helin sababtoo ah
in 100,000 isagu todobaadkii qaato Chamberlain oo isagu ciyaarin 100 iyo markaa 20 qaato xidigaha kale ay qaataan lacag markaasi aan macquul ahayn wax walba uu sameeyay طبعا ninkan arintii sheekadiisu kala goysay waxay ahayd markii Liverpool ay lacag 30 milyan ka badan suuq ay gelisay isla markaana ay ku soo qaadatay Luis Diaz maalintii Liverpool ay doonaysay isku boos ma ahayn Salah laakiin hadafku wuxuu ahaa ninka markaasi Mane markii la keenay Diaz kadib booskiisii waa la bedelay waxa uu noqday laacib markaasi weeryahan afka hore ama fake ku ciyaaray haddana dood badan kama keenin waa u sabray waa adkaystay aakhirkiina waxa darkaysan waxa uu isagu hadda sameeyo dabcan cajiib ay marka Liverpool hadda waxay raadin doontaa xidigo dhowr laakiin su'aasha waxay tahay maamulkeedu miyay bixin karayaan miisaaniyad ah 30 milyan laga yaabo ama 40 milyan laga keeno Mane waxaad u baahan tahay marka adigu Mane maadaama aad lumisay laacib wuxuu ahaa kulamada waaweyn go'aamin karaya laacib meel aan la arkin ama qiiq iyadoo uu jiro dhexdiisa ka soo dhex bixi karaya laacib ilbiriqsiga aad u baahan tahay isagu markaas ku sameyn karaya laacib نضج سميه أو هرمري أو قانجارنيمو جاري بلوغي واد أركي كريسان يهرك ما أنتو ويسوقو مري طبعا حتى حدي قال لك يعني دياز عندها نو مركز بوس كيسوقو بوحنية دياز وددالية لكن واحد وبا أنت كل مدى واوين لاعب صابعي كريه واد أركي كريسان كل مدى واوين سلو عياري ماني كلن كي مركز ريال مدريد كوبادي كورتو ويسوق كوباد بادي عادي بي مسهل أنا كوبادا بدن بوسمي كورن دياز سلو عياري دياز واو بو أحلارات كلا كلن كوين حدي ولو يريحي ما دي كريز معو عياري وسببته ولي ما قارين هيركي مركز مركز ليفربول ولي إلا حد مع ضمام الكذو ما جو آمن حدي يجوا يقادن دولان سلام مركانا أديات وماركتي إنتان بريم ليج كده من أرسنال يدا وحماركتي أدمودا ماركتي إني لومينيسو وريهنا دي لكسات واسعدا sidoo kale maaragtay Nikitiya waa asaguna maaragtay qandaraaskiisa inaanu saxiixin markuu rajay ka qabin inuu maaragtay kordhinay laakiin waxa asaguna maaragtay cad inuu heshiis kordhinay ninkan lagu magacaabo Gabriel Jesus waa ay rabaan laakiin lacagta ay ku rabto kooxda kubadda cagta Manchester City waxaad moodaa inay ahayn kuwa awoodo 50 milyan inay bixiyaan oo maaragtay soo qaataan iyaga maxaa maaragtay la gudboon baa isleedahay marka fiiriso ku darso oo doonista ay doonayaan maaragtay ninka lagu magacaabo Yuri Tielemans oo iyaduna maaragtay soo taris haddaan la gafto mareer Arsenal oo sanad kasta waxa lagu garan jiray iyagu marka inay yiraahdaan anagu waxaan nahay kuwa horyaalka ku guuleysanaya sababta horyaalka ku guuleysanayaan iyagu waxay ahaan jireen sanad walba horyaalka intuu bilaabanayo iyaga top ku jadwalka marka la soo dejiyo kow Arsenal baa ugu sareyn jirtay laakiin horta sanadkan waa idin cudur daariya maxaa yeelay kaalinta kood kuma bilaabanaysaan FC Bournemouth oo idin kaga sare mari doonta Alivete kalahan kaalinta kood marka kuma bilaaban doonta horyaalan aan qaadi doona ma jiri doonto midda labaad Arsenal horta xidiga badan baa la xiriirinaya sanad kasta waa sheegaan iyagu waa rabnaa baa la yiraahdaa min markaasi Dybala ilaa Yuri Tielemans ilaa iyo markaa Alexander Isak ilaa iyo xidiga kale dhowr Morata uu kamid yahay waqtidii ugu dambeeyay aad loogu saadaalinay dabcan Gabriel Jesus hadda heli waayay waxay isku day doonaan wiilkii Morata oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Juventus dadana Atletico markaa ilaada dabcan leedahay nadiga kubadda cagta Arsenal in ka badan xidig bay u baahan tahay uma baahna aniga fikirkayga Morata iyo xidig lamida iyo waayo waxay u baahan tahay laacib fursadda barkeed isagu dhalin karaya iyo لاعب dabaqi kariya doorka muthallathka ama saddexleyda laga dhex abuuray Smith Rowe Bukayo Saka iyo Odegaard saddexdu shaqo qurux badan bay sameeyeen marka garoonka ku jiraan kubadda si isugu dhufsanaysa u dhaqaaqayeen maxaad u baahan tahay marka laacib weeriyahana ku dhaqaaqi karaya masaaxooyinka waayo mar walba uu isagu ku dhaqaaqo masaaxooyinka ciriiriga difaac ayaa laba ayuu ka mashquulinaya isla markaana ka wadaya haddii uu isagu bokiska geeyo wuxuu helayaa xidiga ka soo sokeeya Odegaard ama xitaa xidiga la midka masaaxay ku dhaqaaqan dabcan laacibkaasina waxa hadda la isku raacay inuu noqon karayo Alexander Isak laacib markaasi 60 milyan keen aan ugu heli doonin Sociedad soo ka tirsan nin aan sahlanayn marka la eego qiimihiisana aan yarayn marka Arsenal maamulku balan bay ka qaadeen Arteta waa dadaalay wax buu qabtay iyasoo soo bixin Champions League laakiin shaqo qurux badan buu qabtay ku darso isagana waa uu doonaya Isak maaragtay ilaa xil ciyaareedkii hore muddo maaragtay uu rabay marba xataa London yimid oo maaragtay si uu dhameystiro January laakiin waa suurtagal weys aad u maasantay City aan ku soo gabagabeynayna kadib Haaland maxaa iyada la filan karaa طبعا سيتي دوان waxaa hadlay Khaldoon Mubarak gudoomiyaha kooxda kubadda cagta City markaas uu kooxda Premier League wadnaha xanuunjiyay ninkii wuxuu yiri hadiiba aan keenay Julian Alvarez oo kulan dhexda 6 gool iyo siirelinay Haaland oo isagu goolashuba markaa ku takhasusay
haddana waxaa lasoo wadaa in ka badan 2 xidig ilaa 3 xidig city waxay u baahan tahay dhowr xidig obaal city waxay u baahan tahay dambeed bidix oo Zinchenko sanadii ugu dambeysay sidii la rabay maaha waxay u baahan tahay laacib qad dhexe oo kale xoojiyo booska Gundogan nooca qad ka dhexe ritmi awood dheeraad ah siin karaya sidoo kale waxaa laga yaabaa markaas inay iyagu xitaa difaac dhexe ama u baahnaadaan garaan xidiga Laporte oo aan ahayn sidii hore Stones Diaz iyo waliba xitaa xidig kale hadii helaan macquul bay noqon laakiin labadaas xidig lagama maarmi doono laacib dambeed bidixa aad u muhiim u ah doono miskii diblomaha ku qaadanaya xabsiga dhexdiisa ee markaas imandiisa u baxay kadib ninka hada bedelkiisu lama hayo markaa aad iyo aad uma taasad qays maaragtay sharaf ay tahay markale inaan maaragtay is ag fadhino insha Allah taala muuqaalo badan oo kalena maaragtay isla joogi doona hadda insha Allah naada u qabiira isla markaa muddo ku soo jiray ciyaaraha markaas aad baan markaa ugu faraxsanahay Fuad in markaa ku kulmo adiga waliba Usman Hassan Ali fantastic sharaf gaar ah ay tahay halkan member kan ina qiimaha badan aan soo fariisto markale adiga kula fariisto insha Allah sharaf Allah khayr isku gnahay muuqaalka shar gareeya tani kulantada isma dhaafno